السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا هذا صاحب يال هدي أي تايم مركي كوجو رئيسي عندنا صوب وقطع جنرال كسبسكرايب صار مقالك لا يجري صاحب هذا لو ذاك وحنوات مارك تهال كان يكسو جود من دونا مقال مهمة أو كجهل دنا قلاداتك يا مارك تيجففك كجرا سجان الصومالي ذا سجان ودن ومارك هذا الكعادي جاو كليته هذا الكين أي سجرا متجفة يمدان هين وناجا sidaas oo kale suugaantana maadaama wax uu tiri ibn aadan uu tiriyay waxa ku jira gafaf badan maanta waxaan maartay isdul taagaynaa gafafka diineed ee ku jira suugaanta Soomaalida inagoo maartay isdul taagi doona doorka maasan isleen haleelahay gaf baa ku jira diineed inagoo ugu cudur daarayna hal abuuridii sameeyay ilaahayna uga baryeen inuu u dambi dhaafo ayaan umada ugu digaynaa inay maartay maansooyinkan ay u qaataan kuwa dhaxalgala oo ay dhigeystaan aan uga digaynaa iska dhaafaan waxaan soo qaadan doonaa ilaahay dhowr maanso inagoo ku horeynayna maanso uu leeyahay alaawurkii weynaa ilaahay oo naxariistay Ibraahim Garle laakiin luuq ahaan ay qaaday gabadha lagu magacaabo jiray ilaahay oo naxariistay ina way dhimatay Faadama Axmed Dambiil maansaasi waxa ay kaga hadlayaan maarta Afrika iyo dhibaatadii uu gumeystaha u geystay ayay ka hadlayaan iyo wixii dalkeena laga maray maarta u dirarka xorriyadda iyo wixii gumeysto inaga inoo geystay inta hawlaha lagu gudu jiray ayaa lagu fogaadayo ilaahay lagu la garnaqsaday oo waliba su'aal laga weydiiyay maaragtay cadaaladda ilaahayna maansaasi lagu duray waxaan ka soo qaadanaynaa ilaahay dhowr tuduc oo maaragtay alayliha isleenahay waa kuwa ugu culus ama ugu adag in ilaahay sida loola hadlo qaybta koowaad Faadama waxay leedahay Afrikadan ilaahow maxaa laga abuurayay allahayow alhuumiyo maxaad inta ugu yeeshay allahayow awoodiyo maxaad aalad ugu diiday ummadaada eebo maxaa loogu kala exday gabiga uu ninka tiriyay ee gabadhana ku luuqayday ay ilaahay maaragtay cadaaladiisii lagu duraayo oo leeyahay ummadaadii eebo maxaa loogu kala exday ilaahay magaciisa wanaagsan waxa ku jira al-caadil ilaahay waa caadil uma kala exda doomadiisa qalad ba halkaas ay ku gaareen ilaahay maaragtay u dambi dhaafo qaladka labaad isna wuxuu ku jira maansada dhamaadkeeda waxay gabadha leedahay uurkii islaantii maxaan uga abuurmayay oo fiyo maxay hooyaday araxda ii saartay allahayow awow iyo muxuu aabba ii dhalaayay maartay waxay dood ka qabaan maartay abuurista ilaahay uu uumay maxaa la ii abuuray hadii dhibkaan iyo mushkilada la maray runtii dareen hadalka ku fogaaday qiirada ku fogaatayo halka la gashay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u dambi dhaafo iyana maartay anagana aan ka digtoonano ku kadsoomay maansa labaad waxay leedahay maansa labaad waxa sameeyay abwaankii weynaa maartay ilaahay hadeestay dambigiisana ha dhaafay Cabdi Aadan Xaat Cabdi Qays ayaa sameeyay waa hees caan ah oo maaragtay uu kaga hadlayo nabi jaceelka iyo maaragtay uu kaga hadlayo ayaa maaragtay wuxuu aad u isticmaalayaa awliya Allah adeeg isagoo marbaxusaaya nabiga qoyskiisii saxaabadii waaweynaa culamadii deegaanka laga yaqiinay dadkii wanaagsanaa islaamka ah ee dunida soo maray ayuu marba in soo qaato ayuu wuxuu ku gabagabeynaa kooris aga dhigaya awliya Allah adeeg maaragtay in awliya la adeegsadaa iyo maaragtay meeytii dhimateen anaga xagga naga waa ka xaaraan ilaahay sukadii ama ilaahay qeyrkii ina magan galna ama aan kaalmo dalbana ama aan adeeg ka dalbanaana inaga waa naga xariman tahay ninkan oo cudur daarayna umaduna u digeena isaguna xumaansidiisa ku leeyahay cashiiradii nabigiyo Cabdullaahi dhaliyo Cabdulmudallib iyo cadkii uu ka soo go'ay Ali iyo Faadimiyo cashiiradii nabigo waad culustihiine awliya Allah adeegsan awliya Allah adeeg maaragtay adeega laga dalbaayay maaragtay halkaas culimadu aad u diidaa in ilaahay qeyrkii laga dalbado garab iyo gargaar laga dalbado ninkan halka ayuu kala baxay tudcus baanta saddexaad aan soo qaadanayno iyana waxa iska leh in abwaan oo aad loo yaqaan umad isaga la dhaho waa hees uu qaado Maxamed Axmed Qoomaal isagana wuxuu leeyahay eel anguraane nasiiban helneena in isku duugdeen iska abshirsada awliyaay awleelbu iidankaynagoy umadu la dardaarayo wuxuu leeyahay maaragtay cadaawada isku noqonin ee waxaad haysataan maaragtay isku duubni ku qaato oo sida yeel oo wuxuu koors aga dhigay marka awliyaay awleelbu iidankaynagoy awliyadii habeenka duushay garab iyo gargaar in noqo waa halkaas halka maaragtay aad loo diidan yahay oo la isku heystaayo culimada qaar ay si fogeynayaan meel waaweyn ay gelinayaan laakiin nimanka ragga ah wadanimo iyo waxa u geysay waar dad jacayl baa u geysay waxaan leenahay iyana waa cudur daarayna umadeenana waan uga digaynaa in awliye gargaar la weydiisto mid habeen duusha iyo mid dharaar duushaba hadii uu jiro nin duulaba tan kale soo qaadanayna waa maasa maartay nabi amaana uu sameeyay ninkii weynaa cabqarigii Soomaali dhexdeeda caanka ka ahaa Maxamed Ibraahim Warsame walan wal hadraawi
oo kaga hadlaayo maaragtay siirada nabiga iyo kaga hadlaayo nabi jaceelka iyo kaga hadlaayo ayuu maaragtay tudcu wuxuu ku leeyahay hooyadaadii aamina oo mushii ku dhimato ilaahay xaliimo igarkaaga dhigay ee khayr al-anaami hadraawi maaragtay dhaqankeena Soomaali ahaan kuma jirto canug hooyadii nooshahay in islaamka la nuujisaa malaha siirada rasuulka ayaa waxa uu ka maqlay inay nabiga nagu nuujiday gabadhii lagu magacaabo jiray Xaliimatu Sacdiya wuxuu u qaatay sida dhaqankeena intuu ku cabiray inay hooyadii dhimatay sida awgeed ee Xaliimo u nuujisay wuxuu leeyahay hooyadaadii aamina oo mushii ku dhimato ilaahay Xaliimo igarkaaga dhigay maarta nabiga Xaliimo igarnimo kuma nuujinin ee dhaqanka Carabeed ayaa xilligaas sida ahaa canuga hooyadii oo nool ayaa gabar kale nuujin jirtay marka halka waxa ku jira gef maaragtay oo loo gefay nabiga siiradiisa ninka maaragtay aqoon darri ayaa u geysay siirada oo ka aqoon daraa cudurdaar baan u sameeynaa ummaduna ugu digeena maaragtay in nabigeeni maaragtay siiradiisa wali dhalashadiisi maaragtay been abuur oo gal hadaan isku raacnaa anaga inaan iska qabanin waan iska qabaneynaa nabiga hooyadii ma dhimanin markii uu nuujinaysay Xaliimatu Sacdiya waxa jirta hees badan lagu qaado codadka qaraamka ah markii dambeysayna Sayyid Ciga Maxamed rogaal ku qaaday igu wardambeysay qofkii raba uu ka heli karaa waxa ku jirta eray maaragtay dareen hadal oo maaragtay qof duni ku ciishooday ama ciriiri dareemay uu sameeyay wuxuu leeyahay malaha ifka waan ku soo ambaday halkii la abuuray maan imanin ifkaan maaragtay hadda aan joogo meeshii la abuuray ma baahna waan ku soo ambaday gef baa ku jiro ilaahay waxba kama qaldamaan ilaahay ayaa abuurtay annaga iyo maaragtay wax ka soo koonkan saaran ilaahay ayaa maaragtay awoodoodii sameeskood iska leh wax ka ambada ama ka dhuma ma jiraan halkii la abuuray maan imanin buu yiri hal abuurka heestaasi sameeyay in gifkaas ayaa ku jiro oo maaragtay ilaahay loogu gifiyo maaragtay in wax ka kala dhumaan lagu sheegay waxa kale oo jirta hees uu qaado Xasan Samatar ereydeedan uu leeyahay ninkii weynaa abihi jaceelka Maxamed Cali Kaariye oo uu ku leeyahay unugiisa qaadka sheeqii soo alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa heestan waa hees caan oo wada taqaanaan abaadiro soo ururi caashaqa cid kasta maarta iska qaada idaacadaha laga sii daaya meel kasta taala laakiin fahan dariiba naga haysata abaadir waa shaqo weyn oo caalim ah oo culimadii herer kamid ah culimadii galbeedka diinta aad ugu fiirsay kamid ah yaa waxa laga dalbaaya inuu soo ururiyo jacayl dhumay abaadiro soo ururi caashaqa intaas oo waxay iska leeyihiin maaragtay awliye iyo culimo iyo maaragtay cashiire nabi oo gargaar laga dalbaayo intooda dhan markii la isku soo dardaro diinteenu ma ogola in maar ilaahay sukadii anaga aan gargaar weydiisano taasna waa taas waxaan ku soo gabagabeynaynaa hees uu sameeyay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi codkana uu leeyahay Maxamed Salewaan Tubeec heestaasi kolka hore aniga igala saxsay sidaas ay igala saxsanayd laakiin buuqa marka laga badiyay oo maaragtay dad badan ay wax ka saxeen ba Hadraawi iyo maaragtay iyo Tubeec labadaba maaragtay ka toobad keeneen wayna bedeleen ereygii wuxuu ahaa heesta maanta waxay ahayd wuxuu leeyahay hadaan la cadaabay rabbi iyo caroonay dadku inuu ku caabudo madowgiyo cadaankuba ku xaleema saartaan soo kuma canaanteen hadaan ilaahay ka baqi lahayn oo maartay cabsan lahayn oo cadaabka cabsan lahayn dadka soo ma farteen inay ka ilaah dhigtaan ayuu maartay haweenku leeyahay fanaankan uu ku qaaday heestaasi sidaas ayay sax ku tahay oo ninkaanu wuxuu aaga haray dadka inuu ilaah aaga dhiga gabadhan wuxuu uga haray cabsi uu ka qabo ilaahay inuu ilaahay shirki diidayo oo ogsoon yahay ayuu uga haray laakiin buuqa laga badiyay dad badan baa maartay qalad saxay waxay markii dambe ku bedeleen hadaan la cadaabayn rabbi iyo caroonay dadku inuu ku calmado madowgiyo cadaankuba ku caleema saartaan soo kuma canaanteen dadaal ay sameeyeen ayuu ahaa halkaas aan ku soo gabagabeynayna suugaantii aan kaga hadlaynay maarta qaladaadka diinad uu ku jiray hadii ay jirto mid aan ka tagnay isleedahay Ilaahay ee way jirtaa nagula wadaag halka hoose ee commentiga nagula wadaag aad ay u mahadsantihiin